kulanti wacan daawadayaasheena qiimaha leh ee ku xiran channelkan Badda Cas Media kuna soo dhawaada war degdeg ah oo iminka naga soo gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. warkan oo ah war naxdin leh oo qudhiidaba aan ka naxay waxa uu ku saabsan yahay fanaaniin uu ku jiro fanaanka Sharma Boy oo gaari uu kula rogmaday duleedka magaalada Garowe halkaas oo khasaare kala duwan laga soo sheegayo. fanaanka caanka ah ee Soomaalidu ay wada taqaano raabkana ku canbaxay ee Sharma Boy iyo fanaaniin kale oo hal gaari wada saarnaa iyo dhalinyaro kale oo la socotay ayaa shil gaari waxa ay ku galeen sidii noola xaqiijiyay duleedka magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. halkaas ayaana waxa laga soo sheegay khasaare kala duwan oo dhalinyaradaas soo gaartay. wararku waxay sheegayaan in shilkan uu sababtiisa ahaa markii uu rogmaday gaari uu gacantiisa ku waday fanaanka Sharma Boy taas oo khasaare soo gaarsiisay dhalinyarada kala duwan ee gaarigaasi la saarnaa. wararka intaa waxay ku darayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawacba uu jiro, waxaana la helayaa warar dheeraad ah oo sheegaya in dhalinyaradii la socotay fanaanka Sharma Boy iyo fanaanka kale ee Maslax Mideeye gaarigan gadoomina ay wada saarnaayeen qaarkood ay geeriyoodeen. sida la xaqiijiyay fanaanka Sharma Boy ayaa gacan wax ay ka soo gaareen lama soo oga wax kale oo dhibaato ah oo soo gaaray fanaanka Sharma Boy iyo xaaladiisa sida ay tahay waqtigan. sidoo kale waxaan la ogeyn xaaladda fanaanka caanka ah ee Maslax Mideeye oo gaariga ay wada saarnaayeen, laakiin sida uu xaqiijiyay walaalka dhashay fanaanka Sharma Boy waxaa jira dhaawac soo gaaray walaalkiis ahna fanaanka Sharma Boy iyo sidoo kale geerida hal qof oo ku dhimatay shilkaasi gaari ee ka dhacay duleedka magaalada Garowe. sidaan ognahaba dhawaan ay ahayd markii uu ka tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo inta badan fankiisu uu ku soo baxay fanaanka Sharma Boy isagoo u boqolay dhankaas iyo magaalada Garowe halkaas oo soo dhaweyn weyn fanaanka loogu sameeyay, inkastoo fanaanka uu dhexda ka taagnaa qalalaasihii kala dhaxeeyay isaga iyo wariyaha lagu magacaabo Daahir Cali Sow. fanaanka waxa uu sheegay in halkaas uu tagay in ay ku qabtaan bandhig faneed isaga iyo saaxiibkiis Maslax Mideeye, waxaan dhawaan uu soo qaaday hees uu ku amaanayo maamulka uu isagu qudhiisaba ka soo jeeday ee Puntland. wararka doona hadaba xaaladda fanaanka Sharma Boy iyo saaxiibadiisii kale dhalinyarada ahaa ee la saarnaa gaariga rogmaday iyo sidoo kale xaaladda fanaanka Maslax Mideeye wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan. intaas ayaan doonayay inaan si degdeg ah idin la wadaago. waxaan leenahay Allah caafiyo fanaanka Sharma Boy iyo saaxiibada kale ee ku dhaawacmaba gaarigaasi, sidoo kale Allah u naxariisto dhalinyaradii ku geeriyootay shilkaasi gaari. waxaana idin xaqiijinayaa in gaariga gacantiisa uu ku waday fanaanka Sharma Boy. halkan waa Badda Cas, haddii aad ku cusubtahay saaxiib subscribe noo saar, sidoo kale ha iloobin in muuqaalkan aad like saarto si saaxiibo fara badan uu gaaro, sidoo kalena ku soo biir bogga aan ku leenahay Facebook ee Badda Cas Media oo like noo saar, follow na soo dheh mahadsanid.